جزاك الله خير الجزاء شيخ. سائلka ugu horeeyo waa gabar la yiraahdo Qadra Saciid oo ka soo dirtay magaalada Nairobi Kenya. waxa ay leedahay sheekh waalidiinteyda waa ay dhinteen, waxaa jira walaalahay oo ku caqiido ah yaani suufiya ah, aniga ayaa ka caqiido duwan walaalahay intooda badan. marka nin ayaa isoo doonay, kadib waxaan bilaabay in aan ogaado caqiidadiisa. waxaan ogaaday in uu yahay suufi, kadib waan ka joogay guurkiisa aniga oo Allah uga cabsanaya. marka su'aashaydu waxay tahay, ninka suufiga ma ku xidhmi karaa mise saas ayaan kaga joogaa? su'aashayda kale, haddii nin ahlu tawxiid ah isoo doono walaalkay oo aaminsan caqiidada suufiyada ma i bixin karaa maadaama aan ku caqiido ahayn walaalkay, weliba oo aan aad u nacbahay caqiidadooda nimanka. bismillaahi walxamdulillaah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillaah wasala allahu calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi waasxaabihi waman tabicahu biixsaan ilaa yowmi iddiin. khayr allah siiyo gabadha hadday qabuuriga mushriga intay garatay ay iska diiday. ilaahay wuxuu leeyahay walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'minna walaamatun mu'minatun khayrun min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu walacabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum ulaa'ika yadcuuna ila annaar wallahu yadcuu ila aljannati waalmaqfirati biidnih. ilaahay wuxuu amrayaa ragga muslimiinta ah muwaxidiinta ah inaanay guursan gabar mushrikada, si kasta haydin yaabgeliso quruxdeeda iyo maalkeeda. sidoo kale gabadha muwaxidada ahlu tawxiidka inaanan loo guurin ragga mushrikiinta ah, bal ilaahay wuxuu sii raaciyey walacabdun mu'minun khayrun min mushrikin walow acjabakum. addoon mu'min oo muwaxida ayaa ka fiican oo ka khayr badan mushrik haba idin cajabgeliyo maalkiisa iyo sumcaddiisa iyo wixii markaas ay dadku ku weynaynayaan. khayr allah siiyo gabadhaas ee Nairobi joogtay mushriga iska diiday. nacam, mushrig ma guursan kartid, ilaahay waa xarimay subxaanahu wa tacaala. bal haddii aad u bareerto waxay noqonaysaa taxliil maa xarama allah jalla jalaaluh, inaad bannaysatay wax ilaahay xarimay. gabar ahlu tawxiida mushrik suufiya qabuuriya ma guursan karto. ilaahay waana kala wada ahluishraak, noomana kala duwana ahluishraak. kan suufiga qabriga caabudaya ama awliyada caabudaya, ama kan sanamka caabudaya carabka ama hindiga ama jiniiska ah. dhanka kale waxaa su-aashaas la ku lamaan gabadhu inay tiri waxaa jira walaalkay oo qabuuriya suufiya, hadduu yidhahdo qofkaan ahlu shirki aan u naqaanaa mushrikiina ma i bixin karaa? maya, wilaaye ma leh. mushrik gabar muslimada ma bixin karo, markhaati ma galo, goobjoog inuu noqdo xataa muhiim ma ahan. in qaraabanimo loo xiriiriyo la yidhaahdo haddii gabadha laga guursado gabadhaadi waanu guursanay ogow, taa wargelin waa gaar. amaa in isaga wilaaye la weydiiyo gabar ahlu tawxiida maya. marka walaalkeed mushriga ahi ma bixin karo, qof ahlu tawxiida ayaa bixin kara oo dad uga xiga iyada marka loo fiiriyo xagga nasabka. marka insha allahu tacaala si dhammaystiran waa inay uga guurtaa mushrikiinta. nacaybka ay nacabtahay caqiidadoodana waan ugu hambaliyeynaynaa. ilaahay khayr ha ku siiyo, allah kugu sugo nacaybka ahlu-ishraaga aad nacabtahay, allah kuu sii badiyo fahamka saxiixa oo tawxiidka iyo muwaxidiinta aad jeceshahay. jazaak allahu khayran. جزاك الله خير الجزاء.